Salaamullah saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena halkaas oo aan idinkula wadaagi doono faahfaahin cusub oo ka soo baxaysa howlgalkii lagu qabtay Nicolas Maduro. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan nagu soo biir si aan kula wadaagno xog kooban oo maalinle ah. Mahadsanid. Sarkaal sare oo ka tirsan gaashaanbuurta Mareykanka ayaa markii ugu horeysay sheegay tafaasiil ku saabsan howlgalkii militari oo aad u qorshaysnaa kaas oo horseeday in gacanta lagu soo dhigo madaxweynihii hore ee Venezuela Nicolas Maduro iyo xaaskiisa. Sidoo sarkaalku xaqiijiyay, howlgalkan oo diyaargarowgiisu qaatay bilo badan ayaa waxaa qayb ka ahaa 150 diyaaradood oo isugu jiray kuwa dagaalka iyo kuwa saadka. Ciidamada sida gaarka u tababaran ee Mareykanka ayaa beegsaday hoyga Maduro saacadu markay ahayd 1 habeenimo, xilli ay jirtay deganaan dhanka cimilada ah oo saaciday duuliyaasha diyaaradaha. Inkastoo diyaaradaha Mareykanka lagu soo riday rasaas xoogan markii ay madaxtooyada ku dhawaadeen, haddana ciidamadu waxay kaga jawaabeen cudud militari oo aad u baaxad weyn. Wararku waxay intaas ku darayaan Maduro iyo xaaskiisa ayaa doortay inay isdhiibaan halkii ay dagaalami lahaayeen, waxaana gacanta ku dhigay cutub gaar ah oo loo diyaariyay soo qabashadooda. Sida sarkaalku tibaaxay, lama soo sheegin wax khasaare ah oo soo gaaray askarta Mareykanka. Kooxda sirdoonka Mareykanka ayaa la sheegay inay hayeen xog xasaasi ah oo ku saabsan nolosha gaarka ee Maduro, oo ay ka mid tahay cuntada uu jecel yahay, dharka uu xirto, iyo xogta ku saabsan xayawaanada guriga u joogo. Sarkaalku wuxuu xusay geesinimada ciidanka, isagoo tilmaamay in askarta cirka ku jirtay ay diyaar u ahaayeen inay u dhintaan badbaadinta saaxiibadooda dhulka jooga. Waxaa xusid mudan in da'da askarta ka qayb qaadatay u dhaxaysay 20 ilaa 49 sano jir, taas oo muujinaysa isku xirka khibradda iyo dhiigga cusub ee ciidanka.